deegaanadii ugu muhiimsanaa ee al-shabaab ay ka soo qaadi jireen weerarada qaraxyada iyo dilalka ayaa iminka gacanta u soo galay ciidamada huwanta ah ee macwiisley, kuwa xoogga dalka iyo kuwa maamulada galmudug iyo hirshabelle, waxaana ay ka kala tirsan yihiin deegaanadan galgaduud oo galmudug ka tirsan iyo hiiraan oo hirshabelle ka tirsan. haddaba mas-uuliyiin ayaa ka hadlay soona bandhigay arrin la yaab leh oo ay kala kulmeen deegaanadaasi. muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay oo beejkeena galwareed aad ka daawanayso muuqaalkan, nagu soo biir, like iyo follow dheh, muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale, qaybta commentigana fikirkaaga inaad noogu reebto ayaan rajeynaynaa. cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa ka dhawaajiyey inay jirto laba sabab oo xilligan keenaysa in shacabka oo kaashanaya ciidamada dowladda ay weeraro ku qaadaan deegaano aad looga baqi jiray oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen. guuleed ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in al-shabaab 5 sano ee lasoo dhaafay xadkii dhaafisay cadaadiska ay dadka ku haysay, islamarkaana ay ugu wacan tahay arrimo badan oo ay qayb ka tahay canshuuraha iyo culaysyada saa'idka ah ee ay ku hayeen dadka ku sugan guud ahaanba dalka, ama toos ha u maamulaan magaalooyin iyo deegaano, ama si dadbanba ha uga qayb qaataan in iyagu saameyn ay ku leeyihiin deegaanadaasi oo ay muujinayaan. waxaana intaasi uu ku daray in lacago siyaabo kala duwan ay al-shabaab uga qaadaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ay tahay mid culays badan soo kordhisay, islamarkaana dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay ay ku guuldareysatay in arrintan ay hoos u dhigto. al-shabaab ayaa hadda waxay u muuqdaan inay culays badan kala kulmayaan kacdoonka dadweynaha oo kooxda macwiisley la baxday ay matalayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulada, islamarkaana arrintan ayaa waxay noqotay mid lama filaan ku noqotay dad badan, islamarkaana u muuqata in ay tahay arrin al-shabaab aysan horay ugu sii fikirin. ilaa iminka deegaanada cusub ee gacanta u soo galay ciidamada huwanta ayaa waxaa ka mid ah deegaan lagu magacaabo Booco oo ku dhowaad 50 kilomitir koonfur uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaana muuqanaysa in dad badan ay siyaabo kala duwan u arkaan istiraatiijiyada deegaankan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ka hadlayay qabsashada deegaanka Booco ee ciidamada huwanta ayaa tilmaamay in deegaankan uu ahaa deegaankii laga soo abaabuli jiray dilalka iyo qaraxyada kooxda al-shabaab ay ka fuliso guud ahaanba gobolka Hiiraan ama gobolada dhexe. wuxuuna tilmaamay sidoo kale in deegaankan xarun dhaxaad uu ahaa maxkamad al-shabaab ay ku lahaayeen halkan oo qaar badan oo ka mid ah dadweynaha gobolada dhexe ay u soo cadaalad doonaan jireen, iyadoo sidoo kale ay muuqanayso inuu ku tilmaamay in halkan ay ugu tageen dad aad u daruufaysan oo dhibaatooyin kala duwan wajahayay, al-shabaabna lacago badan ay ka qaadayeen. waxaa sidoo kale deegaan lagu magacaabo Sinadhaqo oo duleedka ka xiga Dhuusamareeb gacanta u soo galay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa maamulada iyo weliba kuwa macwiisleyda. deegaankan dagaal sida u buuran kama dhicin sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, waxaana deegaankan sidoo kale loo arkayay inuu yahay halkii fariisimaha ugu weyn al-shabaab ay ugu adeegsanayeen dilalka iyo qaraxyada ay ka fuliyaan Dhuusamareeb iyo hareeraheeda. mararka qaarna duqeymaha dadka fuliya ee al-shabaabka ayaa deegaankan kasoo ruqaasan jiray. ciidamadii halkaasi tegay ayaa wada xaqiijinta ammaanka iyagoo sheegay inay ku sii socdaan ceelbuur oo aysan istaagi doonin. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa tegay furmaha hore ee dagaalka, islamarkaana ugu baaqay ciidamada isgarabsanaya inay sii xoojiyaan dadaalkooda oo aysan halkaasi ku sii istaagin. islamarkaana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo xiray warar laysla dhexmarayay maalmihii aynu ka soo gudubnay oo sheegayay in isagu uusan doonayn in al-shabaab xilligan lala dagaalamo, sababtana inta badan dadka ku doodaya arrintan ma aysan caddeynin. arrintan sidoo kale dadka qaar waxay tusaysaa in Qoorqoor uu qaatay dhabihii dagaalka ee al-shabaab lagula dagaalami lahaa. wasaaradda gaashaandhigga ayaa arrintan bogaadisay. wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay gaareen deegaanka Yasooman ee gobolka Hiiraan oo maalmo ka hor gacantooda ka baxday al-shabaab, waxaana halkaasi lagu wadaa inay kula hadlaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka.
muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanid kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kastoo muslima inuu barto waa kitaabka cadaynaya booska aad ka degayso jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur-aan online waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iidayso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya ataxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online